Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada channelkeena Nambic Digital Marketing Solutions. Waa video kaleento oo aan uga hadli doono qaababka internetka lacag looga sameeyo. Maanta waxaan ka hadli doonaa YouTube-ka. Run ahaantii YouTube-ka wuxuu ka mid yahay aaladaha ugu badan uguna fiican ee internetka lacag looga sameeyo. YouTube-ka wuxuu leeyahay qaabab kala duwan ee lacag looga sameyn karo. Waxaa jiro janaalo aanan sameynin videoyaal muuqaal iska duubin, even xataa codkooda xataa aan soo bandhigin, kuwaas oo boqolaal dollar maalintii ka sameeyo. Inta badan annaka waxaan aragnaa janaalada Soomaalida aragnaa, janaalada Soomaalida oo maxay ahayd sida iska daba joogga leh iskaga daba sameeyo, iskaga daba daysado, kadibna qofkii video iska soo duubaayo, heesa reaction laga sameynayo, waxyaabo maalayacni ah. Laakiin run ahaantii internetka markii YouTube-ka lacag laga sameynayo, YouTube-ka waa website-ka labaad ee dunida ugu booqashada badan markii Google laga soo tago. Google iyo YouTube-na hal shirkad waaye, ayada iibsatay YouTube, ayada iibsatay Google iibsatay. Marka YouTube Google waa shirkadda ugu badan ee ugu booqashada badan, website-ka ugu booqashada badan dunida. Number 2 waxaa ku jiro YouTube-ka. Hadda beentii u malaynayso waxaad tagtaa website-ka la yiraahdo similarweb.com. asaga ayaana ku tusayo website-yada ugu rankii horeeyo dunida oo dhan markii la eego. Haddaba marka YouTube-ka marka waxay dadka fursad u siisay in qofkii uu sameeyo muxtawo uu asaga leeyahay oo copyright xuquuqdiisa asaga uu leeyahay, kadibna uu soo geliyo, uu juhdi uu bixiyo. Mana ogolo YouTube-ka in dad kale waxyaabo ay sameeyeen inaad intaad ka daba qaadatid kadibna aad maaragtay soo gelisid. Laakiin waxaa jirto mid anaga aanan ogeyn oo ah YouTube-ka wuxuu fursad kuu siinayaa in dad kale muxtawo ay leeyihiin, videoyaal kala duwan oo ay dadka soo dhigteen Facebook-ka, inaad intaad soo qaadatid kadibna aad hal video iskugu keentid, kadibna aad maaragtay cod saaratid waxaysid. Qaabkaas YouTube-ka is okay, waa ogol yahay. Sidoo kale maanta teknolojiyada horumar waxayna gaarsiisay in haddii aanan aqoonin xataa sida videoga loo sameeyo, inta badan video markuu qofka sameynayo ama uu maaragtay wuxuu u baahan yahay videoga markii la diyaariyo la duubo, wuxuu u baahan yahay in editing lagu sameeyo. waxaa loo baahan yahay inaad taqaanid softwarada video editing. taas teknolojiyadii waa ay inoo saamaxday. annagoonan skillska lahayn waxaan awoodi karnaa in aan maxay ahayd website-yo badan oo kala duwan soo baxeen, taas oo qofka asagoonan skillska lahayn uu awoodi karo inuu video uu sameeyo. taasna waxaa marag ka ah website-kan. website-kan waxaa la yiraahdaa, iyo website-yo kale aad u fara badan. website-kan waxaa la yiraahdaa InVideo ayaa la yiraahdaa. waa website lacag lagu bixinayo. wuxuu leeyahay videoyaal kala duwan, sawirro. sidoo kaleeto wuxuu fursad kuu siinaa adiga in aad videoyaal aad soo gelisid kadibna aad halkan ku bedeshid, aad ku hagaajisid. marka wixii oo dhan ma aragtay video editing oo dhan wuxuu kaaga dhigay wax simple ah. hal tutorial ama hal video aad daawatid kadibna aad isku daydid ayaa uga bixi kartaa in aad noqotid inaad tahay qof aad isku arki karto qof xirfad u leh video editing oo dhan ee lagu sheegayo. waxaad sameyn kartaa kuwa softwarada ku shaqeeya videoyaal ay sameeyaan kuwa ka qurux badan aad sameyn kartaa. haddana website-kani wuxuu kaloo fursad inoo siiyey website-yada kale ee software-kan leh
xoogaa lacagtoodu way iska badan tahay. Website-kani laakiin in video oo fursad inoo siiyey in application-kiisa barnaamijkiisa in bilbilna aad lacagta u bixin kartid, sanadna aad u shubi kartid. bilbil hadda u bixinayso bishii waa $15. waxaan u malaynaa $15 wax ay naga dhibaysa ma laha. sidoo kale haddaad sanad u bixinaysidna qiimo dhimis wuxuu kuu sameeyey oo bishii inuu kaaga dhigo $10 marka 12 bilood waxaa isku bixinaysaa $120. weliba haddana qiimo dhimis kale uu sameeyey oo ah haddii aad waqtigan hadda la taagan yahay aad samaynaysid oo 1 year aad subscription samaysanaysid in uu $30 qiimo dhimis kuu sameeyey. marka instead meesha ka bixin lahayd 120 inaad $90 kaliya aad bixisid. run ahaantii anigoo video editing xirfad saas badan uma lihi. inta badan waxaan ku shaqeeyaa oo aan xirfad badan u leeyahay graphic design-ka oo aan waqti badan geliyey sida Photoshop-ka, Illustrator-ka, CorelDRAW-ga, InDesign-ka. waxyaabahaasaan maaragtay aad u danayn jiray. waxyaabahan videoyaasha waxaan aaminsanaan jiray inay yihiin wax very complicated marka dhowr mar aan isku dayay waa iska dhaafay. laakiin markii dambe waan xoogsaday ilaa xoogaa meel waan ka gaaray. laakiin markii aan arkay website-kani waxaan arkay in aan videoyaasha la sameynayo ee dadka professionalka ay sameeyaan inaan kagu qurux badan aan sameyn karaan is arkay. anigoo kaliya dhowr video daawaday kadibna awooday in aan maaragtay videoyaal professional aan soo dhex saaray. software-kan wuxuu leeyahay in ka badan dhowr boqol oo kun oo templates videoyaal diyaarsan kuwaas oo aad maaragtay editing aad ku sameyn karto. sidoo kalento license leh oo aanan copyright lagugu qabsanaynin. taasna marka waxay noo sahlaysaa in aan maanta YouTube channel aan samaysano kaasoo ah passive income. YouTube-ka wuxuu uga fiican yahay barnaamijyada kale wuxuu uga fiican yahay mar haddii aad YouTuber aan noqoto oo aad maaragtay niche qaadato. ma aha niche-kan Soomaalida ay qaadanayaan oo ah inaad video iska duubto kadibna aad dhahdo heesebel reaction ka sameynaa. that's not niche ma aha. waxa aad lacag sugaysidna waxa waaye aad lacag ka raadinaysid waxa waaye views-ka inta qof ay ku daawatay. laakiin waxa ugu muhiimsan ee YouTube-ka markii dadka ay channel samaystaan ay raadiyaan ma aha views ma aha waxa waaye waa Google AdSense waaye. xayeysiisyada kaasoo horbaxayo waaye waxa la raadinayo. marka YouTube-ka marka xaguu xayeysiisyada dhigaa wuxuu xayeysiisyada dhigaa niche-yada because dadka xayeysiiska YouTube kasoo dalbanayo oo lacagta ku bixinayo ma dalbanayaan dadka oo maaragtay kaamirada inta soo hor istaagaan waxay rabaan iskaga hadlayaan. no dadkaas ma raadinayaan. waxa ay raadinayaan dad oo targeted because waxaan waa marketing waa suuqgeyn waaye. waxay raadinayaan macmiil waxyaabaha ay u baahan yihiin ama adeeggu ay u baahan yihiin ka iibsado ayay raadinayaan. soo marka dadkaasi xaggee joogaan oo laga heli karaa waxaa laga heli karaa nicheska laga heli karaa dadkaas. macnaha tusaale ahaan oo kale channelkaaga hadduu yahay channel oo nichekiisa ka hadlayo financiga iyo waxyaabahaas ka hadlayo waa niche-yada wuxuu uga mid yahay ugu qaalisan. waxaa jira maanta niche-yaal oo channel oo waxaa jiro oo financiga dhaqaalaha waxyaabahaas ka hadlo oo maaragtay dhowr kun oo subscribe leh oo waxaa jiro lacagta uu bishi uu ka helo aanan ka helin kuwa Soomaalida 600-700 oo kun oo subscribe kale oo saacado yar markuu videogooda ku jiro intaasoo kun oo qofood ay daawato lacagta aysan ka sameynin kuwan lacagtay ka sameeyana ka badan. maxaa yeelay halkiisa video uu soo dhigo 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo soconayo waxaa ku dul safanayo ilaa 10 xayeysiisyaal soo marka hal video ayuu wuxuu ka sameynayaa
10,000 20,000 oo dollar ayuu hal video ka helaa meesha adiga aad ma aragtay intaasoo views aad ka helaysid sentiyaal aad ka helaysid kunkii views kunka qof oo daawato waxaa ka raadinaya $1 iyo $2 ay ka sugayaan ay ka raadinayaan intaas leewa waxay u rafaadayaan marka youtube-ka markaad samaysanaysid channelka aad samaysanaysid inaad hadaf u samaysataa fiican inaad trendiska la socotaa fiican digital marketingka meesha wajhada ay u socoto haddaba marka waxyaabaha marka ugu fiican hadda oo niche-yada oo ugu fiican waxaa waaye finance-ga waxaa waaye make money online waxyaabaha internetka sida lacag looga sameeyo iyo sidoo kaleeto affiliate marketing waxaa jiro journalist aanan sameynin videoyaal iska duubin isticmaalo software-kan sida in videoga kaleeto website-yo lamid ah isticmaalo kan waxaan ku doorbiday wuu ka raqiisan yahay kuwa kale lacagahooda bishii $40-50 waaye oo sanad camal loo shubaayo qaarkood bilbilahna waa jiraan laakiin waxyaabaha uu website-kani leeyahay wixii oo dhan oo hal meel iskugu kaa keenay hadda maanta haddaad video editing samaynaysid oo aad isticmaalaysid Adobe Premiere ama waxyaabo noocaas oo kale run ahaantii intaasoo waxaad isku keenaysaa laakiin kan wuxuu ku saamaxayaa adigoo website ku dhex jiro oo aadan software aad soo dejisanaysa aysan jirin oo computerkaaga problem ku abuurayo inaad isla website-ka dhexdiisii aad videogaaga ka hagaajiso wax walbo videogaaga u baahan yahay aad ka dhex samaysid kadibna videogii diyaarsan oo HD ah aad la soo baxdid oo diyaarsan kadibna YouTube-ka hore ka qaadanayo niche-yada marka ugu fiican oo internetka lacag looga sameyn karo waxaa koow ka ah in aad channel aad samaysatid YouTube ah maanta channel inaad YouTube aad samaysatid it's a very simple kowda horeento muhiimadda koowaad waxaa ka bilaabaysaa stepka koowaad inaad channel aad samaysid channelka markaad samaysid kadib bil 2 bil 3 bil 4 bil waxaad samaynaysaa in aad bilowdo in aad videoyaasha iyo wixii contentiska aad gelisaa ha ka fikirin subscribe iyo views iyo waxaas ha ka fikirin shuruudaha uu YouTube-ka kugu soo dalbanayo in uu xayeysiisyadaas kugu soo apply gareeyo waxaa koow ka ah in channelkaaga uu gaaro ilaa 1000 subscribe inuu gaaro iyo in 4,000 oo daqiiqado la daawado maqaaladooyinka aad soo dhigtay waa very simple si fududaana ku gaari kartaa laakiin waxaa uu laga baahan yahay commitment yaa lagaga baahan yahay iyo in aad ma aragtay nafsadaada aad aamintid kadib waxaa ku shaqeynaya waxa la yiraahdo affiliate marketing waxaa la dhahaa suuqgeynta commission kale suuqgeynta commission kale maanta shirkadaha online-ka shirkadaha dunida ku yaalo ee ugu horeysa Amazon waxay leeyihiin wax la yiraahdo affiliate program ay leeyihiin shirkad walba ay leedahay waxaa ka hadlaysaa ama ka bixinaysaa sida u aragto barnaamijyadaas iyo softwaradaas sida hadda tusaale ahaan oo kale website-kani hadda aad arkaysaan wuxuu leeyahay qayb affiliate marketing uu leeyahay haddii linkigaas uu isiiyay haddii aad iska diiwaan geliso